أيام بأيام دوني آخر ثبان من آن لهان دكتور لوغا إزان وأيام بأيام rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya waxa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday hogaamiyihii Khaatume State isla markaana ahaa aqoon-yahan Soomaaliyeed Professor Cali Khaliif Galeydh kaasi oo wararku ay sheegayaan in maalmihii u dambeeyay uu ku xanuunsanayay magaaladaasi haddaba haddii aynu in yar isdul taagno qaybo ka mid ah taariikhda marxuumka Cali Khaliif Galeydh waxa uu ku dhashay gobolka Sool halkaas oo uu ku soo qaatay inta badan qaybihii ugu horeeyay ee noloshiisa waxana uu dugsiga sare ka galay kana dhamaystay degmada Sheekh waxana uu ahaa aqoon-yahan darajada tacliinta maadiga ka gaadhay PhD isagoo soo noqday macallin iyo qof muddo dheer soo ahaa shaqaale dawladeed oo ka howlgalay qaybo kala duwan rabbi ha u naxariistay Cali Khaliif Galeydh waxa uu ahaa siyaasi Soomaaliyeed waxana uu mar soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadihii 2000 ilaa 2001 sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ayuu soo noqday sanadkii 1965 ilaa 1967 waxana uu mar kale noqday wasiirkii waxbarashada Soomaaliya sanadihii 1980 ilaa 1982 marxuum Cali Khaliif Galeydh waxa uu in muddo ka soo shaqeeyay qaybaha waxbarashada Soomaaliya isagoo macallin iyo barasare ka ahaa maxadkii Somali Institute of Public Administration ee lagu baran jiray maamulka dawliga halkaasi oo markii dambena ka noqday agaasime marxuum Cali Khaliif Galeydh ayaa lagu xasuusan doonaa agaasimidii barnaamijyadii horumarineed ee Soomaaliya ka socon jiray sanadadii 1970 ilaa 1980 isagoo si gaar ah u maamuli jiray mashruucii sonkorta ee Juba sidoo kale marxuum Cali Khaliif Galeydh ayaa sanadkii 2000 noqday xildhibaan iyadoo isla waqtiyadaasina uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dawladda uu madaxda ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya Cali Khaliif Galeydh waxa 2014 loo doortay inuu ahaado madaxweynaha maamulka Khaatume State sidoo kale marxuum Cali Khaliif Galeydh ayaa ahaa nin miisaan culus oo siyaasadeed ku leh guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolada uu ka soo jeeday Sool waxana xusid mudan in Cali Khaliif Galeydh uu dadaalo xoogan ku bixiyay sidii loo heli lahaa maamul gaar oo ka madax bannaan Somaliland iyo Puntland oo ka hirgala gobolada Sool iyo Sanaag balse arrintaasi ayaa aakhirkii waxa ay isugu soo biyo shubatay inuu heshiis la saxeexdo xukuumadii Somaliland ee uu hogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo marxuumka maanta ayaa waqtigiisu soo idlaaday waxana uu ku geeriyooday sidaynu horeba u soo sheegnay magaalada Jigjiga Sagal Cabdiraxmaan Axmed warbaahinta Manaal Hargeysa